بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه maanta bisha waa 20 bishii saddexaad 2024 waxaan joognaa deegaanka ceelasha biyaha duleedka magaalada Muqdisho waxaan dhex taaganahay booskii loo gaday ilmihii agoonta ahaa gabadhii duniya ay dhashay 9 canuga agoonta ahaa hawshaas horeyna dhulkii baa loo gaday haddana waxaa la bilaabay dhismihii waxaana dhismaha la bilaabay 18 bishii saddexaad 2024 sidaad u jeedaan 3 maalmood ee shaqada socotaa meel fiican bayna maraysaa insha Allah waxaan rajaynaynaa ramadaanka aakhirkiisa ama tobankiisa dambaba inay reerkii guriga ku soo guuraan oo ay dhamaato ayaan biidnillaahi kariim aan rajaynaynaa waxaan u mahad celinaynaa ilaahay iyo arintaas noo suuro galiyay oo noo fududeeyay u mahad celinaynaa walillaahi alxamdu waxaan kaloo u mahad celinaynaa dadkii iska kaashaday arintan ayada ah ee u istaagay agoonta ayada ah in gurigan loo dhiso booskaana loo godo oo ay ugu horeeyaan dictor iskana kaalmaysteen dictor Sheekh Axmed Nuur xafidahullah iyo hay'adda Haaro oo u istaagay arintan ayada inay suuro galiyaan iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika ee arintaas codsigii Sheekh Axmed Nuur ayagoo ka jawaabayo u istaagay ee gacanta ka geystay in hawshan ay najaxdo falillaahi alxamdu ilaahan u mahad celinaynaa iyo hay'adda iyo dictor Sheekh Axmed Nuur iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee arinta ayada gacanta ka geysatay ayaan u mahad celinaynaa waxaan idin leenahay jazaakumullahu khayr Allah idin barakeeyo adduunyo aakhiraba hawl aad u fiican ayaa maartay u istaagteen ilmo agoon ah oo xaaladahooda hadda ka hor aan soo tabinay oo xaalad aad ku jiray marka barakallahu fiikum aan leenahay insha Allah hawshaana waa bilow markay dhamaatana waxaan sameyn doonaa xaflad weyn oo aan guriga ku agoonta ku wareejinayno wariyaal iyo dad ay ka soo qayb gali doonaan insha Allah aan sameyn doonaa intaan hadda waa hawl hordhac waaye on meesha ay hawsha marayso inaan la socodsiino hay'adda iyo maartay Sheekh Axmed Nuur iyo jaaliyadaba waxaan leenahay wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh